dhammaan daawadayaasha OMN meel kasta oo aad joogtaanba waxaan doonaynaa inaanu idinla socodsiino ama meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada waraysi kooban oo aanu la yeelanay oday Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Axmed Xasan ama Zakariya Xasan waa oday Soomaaliyeed oo asal ahaan ka soo jeeda deegaanka Dirdhabo ku dhashay haddana waxa uu joogaa wadanka Belgium isaga ayaanu idinku soo dhaweynaynaa hadaladiisii qaar kamida ayaa halkan idinku soo koobaya odayga ayaa ka hadlay waqtiga xaadirka waxa ka jira deegaanada labada shacab ee walaalaha ah Oromada iyo Soomaalida waxa ka taagan deegaanada labada shacab ee walaalaha cid waliba waxa ay ka dheregsan tahay in dawladda gumaysiga Itoobiya ay rabto inay uga faa'iideysato halganka dhabta ee ka hana qaaday deegaanada Oromiya ee shacabka Oromadu ay doonayaan in ay kaga takhalusaan dawladda gumaysiga Itoobiya marka odayga ayaa inoo faahfaahin doona hawsha inta badan aniguna dhinacayga waxa aan doonayaa inaan waxyaabaha qaar aan idin sii iftiimiyo dawladda gumaysiga Itoobiya ayaa markaa rabta inay adeegsato barasaabka u fadhiya dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa lagu magacaabo ama ninka magaciisa la yiraahdo Cabdi Ilay isku sheega in uu yahay madaxweynaha u adeega daba dhilifka iyo waliba inta isaga daba socota dhamaantood dhinaca kale cid waliba waxa ay ogsoon tahay deegaanka Oromiya waxa ka jira halgan dhab ah oo la doonayo in lagaga takhaluso dawladda gumaysiga Itoobiya halgankaas oo meel fiican hadda maraya ayaa dawladda gumaysiga Itoobiya markii ay u babac dhigi kari weyday halgankaasi waxa ay samaysay in ay iska hor keento labada shacab ee walaalaha ah iyadoo adeegsanaysa maamulku sheega dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee u adeega cadawga Itoobiya dhinaca kale odayga ayaa ka hadlay dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya idinka laftarkiinu maxaad uga dhidhii weydeen maxaad u kici weydeen maxaad u halgami weydeen maxaad u raaci weydeen dadka shacabka ee Oromada ee doonaya gumaysiga muddo dheer ina soo haystay idinna maxaad u raaci weydeen oo u kaalin weydeen haddii aad raaci kari weydaan maanta laftarkeeda maxaad u hor istaagaysaan gumaysiga dadkani waa dad xoog leh hanti leh awood leh dhul ballaaran leh dawladii bay kiciyeen ama way lilijiyeen oo waxay kiciyeen shacabkoodii joogay gudaha iyo dibadda marka siyaabaha ay adeegsanayso dawladda gumaysiga Itoobiya ayaa ah in ay iska hor keento labada shacab ee walaalaha ah sida Oromada iyo Soomaalida dhinaca kale halganka dhabta ee ka hana qaaday Oromiya gudaheeda waxa loo baahan yahay inana kacno oo aan la garab istaagno heel iyo hooba wixii aynu awoodi karno odayga ayaa waliba haddana waxa uu ka sii dardaarmay waxaynu leenahay dhaqan hidaynu leenahay caadaynu lahayn geed hoosteed baa lagu wada hadli jiray odayaal baynu leenahay waxgarada in la isu keeno labadii dhinac odayaashii in geed hoosteed la isla fadhiisto wixii dhiba ee jirana in la xalliyo ayaan kula dardaarmi lahaa buu leeyahay odaygu waad ka dhageysan doontaan insha Allah haddii uu Ilaahay yiraahdo dhinaca kale odaygu waxa uu ka dardaarmay halganka Oromada ee ka soconaya dhammaan deegaanada Oromiya la gumaysto walaalayaal waa in aynaan ku noqonin turunturo waa in aynaan hor istaagin waa in wixii aynu ku awoodi karno ama aan ku gargaari karno aynu la garab istaagnaa haddii ay jiraan wax dhibaatooyina ama gardarooyina oo la isku dhacay labada dhinac deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada haddii uu jiro wax dhib ahi waxa sameeyay gumaysiga Itoobiya ayaa sameeyay oo fangareeyay oo lacag ku bixiyay taasna waxaan idin kala dardaarmayaa inaad saas u ogaataan
dhinaca kale waa in lagu dhameeyo wada hadal iyo wada xaajood inama soo gumaysanin shacabka Oromiya dadka Soomaaliyeed ee Soomaalida Itoobiya Oromo ma gumaysan iyagaba waa la gumaystaa gumaysigu wuxuu ahaa kan dhowr boqol oo sanadood la ina soo wada gumaysanayay maanta Oromo waxay gaadhay ilbaxnimo horumar isku filaansho midnimo ismaqal istaba socod iyo inay iska tuuraan heeryada gumaysiga inana waa inaynaan gumaysiga caawinin waa inaan caawinaa walaalaheena Oromo meel kasto ay joogaanba dhulkeenana waa inaan ku badbaadinaa waa inaan ku ammaan gelinaa ayuu leeyahay odaygu dhulkeena ku soo dhawaada odayga iyo dardaarankiisi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta aad baan ugu mahadnaqaynaa maaragtay Oromo Media Net oo nagu soo casumadeeyay khadka si aan maaragtay aan bal wixii annagu aan ka qabno dhibaatooyinka maanta meesha ka taagan inaan xaggan aan ka sheegno ay tahay dhibaatooyinkani maxay ka yimaadeen sidayna u yimaadeen maxaana ka dambeeya ay maaragtay ay su'aashu ay tahay anu haddaan maaragtay isku keen macnaayo waxa weeyaan Maxamed Axmed Xasan baa la yiraahdaa Zakariyana waa la yaqaanaa ku dhashay magaalada maaragtay Dardawe in badanna Jarmanka joogayay buugadna qoray arrimahana buug ka qoray maanta horta waa fursad fiican inay tanina siiyaan oo anigoo haddana maaragtay gudoomiyaha ururka Somali Regional Democratic Alliance urur maaragtay ninkaan isku xiraya dadka Soomaalida regionka sidaa daraadeed maantahan horta fursadan iyaan doonaynaa inaan ka faa'iidaysano anigii caliba si aan bal dadkeennii maaragtay aan dhaqan celinna aan u siino dhibaatada meesha ka jirtana annagiyo maaragtay Oromada in aan bal waxaan ka faafino aan wax ka sheegno historically aan ka socono historically aan wax sheegno historically Oromo Somali ma guumaysan Somalina Oromo ma guumaysan historically Oromo Somali genocide kuma samay mana baabi'in jirin hablahoogana maaragtay ma farxumaynayn historically kolka eegtid anvers on the other side Somalidu Oromo genocide kumay samayn may baabi'inayn xoolo kamay dhacayn dadka hablahoogana maaragtay ma farxumaynayn ilaa intii maaragtay historically ay Abyssinian ku ay qabsadeen dhulka iyo maaragtay Oromo la soo qabsaday Oromiya la qabsaday dhulka Soomaalida la qabsaday genocide-kii iyo operation-kii iyo dhibaatooyinkii Abyssinian-ku amba maaragtay kuwii hore ee Haile ilaa Haile Selassie ilaa maaragtay Mengistu ilaa maanta wayaanahan dadka Oromiya iyo dadka Soomaalida dhibaato xoog leh lagu hayo dhulka Soomaalida waxa weeyaan waa regional waxa weeyaan waa military maaragtay occupation passion baa lagu hayaa military dadka Soomaalida waxa weeyaan waa dadka aad loo guumaysto dadka aad loo gumaadana waa iyaga maanta dadka Soomaalidu wax ay ummadda Oromada ay ka sheeganayso leedahay Oroma maanta waxa lagu sameeyay laakiin imika tani maxaa u timid cusub maxaa keenay waxa maanta keenay waa revolution-ka Oromiya revolution-ka iyo mass basis-ka Oromiya markii ilaankii Haile Selassie Menelik waxay ahaayeen segment kala qaybsan laakiin maanta Oromiya dadkii Oromada the Oromo people waxa weeyaan daar united by noqdeen or one cause qura to be independent and to be free cause-ka maaragtay Oromiya and Oromia who is a free Oromia free or xorriyad
It means a free Somali people. Somaliduna waa free. And it's our interest, annaka interestiga Somalida ay tahay, the freedom of Oromia. The free of Oromia. Marka waxa weeyaan, it's a two people, uguna badan, region kana ugu badan, economically maaragtay there are potential. Oromia is economically is potentially not only for the population. Somalia is also maaragtay economically, strategically, is waxa weeyaan waa meel weyn ay ugu fadhido. The regime of Ethiopia. Marka dagaalkan maanta ay Oromo iyo Soomaali ay dhex dhigeen, waxay u dhex dhigeen Soomaalidu in ay iyo ay ujeeda maaragtay ay ujeeda wayaanuhu ay ujeedo in ay ku cimri darar ay ka dhigato oo artificial been oo border maaragtay xuduudaha jirin inta u kala samayso ay labada qowmiyadood madaxa isku geliso. laba waxba meeshan u socda. xagga Soomaalida waxay ka haystaan waxa weeyaan waa Cabdi Iile, a notorious psychologically maaragtay nin buka ah, iyo liyo booliiska ay u sameeyeen. Cabdi Iile ummadiisii umuu naxin, genocide buu ku sameeyey, hablihii wuu kufsaday, dad badan oo innocent oo Soomaaliya ayuu wada xidhxidhay. marka maxaa ka filanaysa inuu Oromada u sameeyo? waxa weeyaan waa it's the long hard waa lacag gacanta dheer ee kol kastiba wayaanuhu ay ku camal falayso, ay kolo meel ay u dirayso. iyo maaragtay ninkan uu yahay maanta maaragtay incident ta kale ay iyakuna ay haystaan waxa weeyaan dhibaatada kale waxa weeyaan OPDU iyo maaragtay liu force-ga maaragtay ay OPDU-ga ay wadato oo iyakuna dhibaatooyin kale maaragtay meesha abuuraya. waxa weeyaan waa shicib masaakiina oo fadhiya meesha in ay maaragtay dhexdooda dagaalka ay bilaabayaan dhexdooda inuu shicib ku baabao, shicibkuna isku adowsado weeyaan labada shicib ee maaragtay Oromia iyo ummadda Soomaalida. meesha in hadalka inaan nagu badina waxa weeyaan wayaane wuu dhammaaday, waqtigiisa wuu dhammaaday, wuu khalaas una sii socdaa. waxa qori ku sii socdana waxa weeyaan inuu labada ummadood inuu madaxa isku galiyo uu cimri darar u ka sii dhigto. marka waxa weeyaan taa in ay dadkeenu ogaadaan weeyaan, dadka taa weeyaan maaragtay dadka Soomaalidu inay ogaadaan. maanta waxaan anigu aan ku farxi lahaa oon jeclaan lahaa mass movement-ka maanta Oromadu ay samaysay inay Soomaalidu ay samayso. waayo hadday maanta ay Soomaaliduna sidaa mass movement-ka ee nabadgelyada ee adduunka maaragtay tusay, waa revolution cusub weeyaan ee Oromadu ay la timid. in aan taayoo kale ay ummadda Soomaalidu maanta ay la timaado oo iyakuna xaggooga ay ka kacaan, ay talabaadna solidarity maaragtay ay tusaan, ay dadka Oromada maaragtay solidarity ku tusaan maaragtay halganka maanta u kaceen. maanta waan farxi lahaa. Soomaalida waxa weeyaan horta operationka ugu weyn maanta Ethiopia saareed ilaa maanta waa ummadda Soomaalida. tii waxa loo abuuray liu police, tii kolkii hore iska dhaaf, tii iminka loo abuuray waa liu police. waxa weeyaan ta ugu horeysa dadka Soomaalida waxa laga dhigay sabool, lacag haysan, wax kasta waa loo diiday. waxa lagu abuuray situation haddaa u fiirsatid meelaha qaarkood even ready Indianka iyo aborigines-ku ay ku noolaan kareen. yaa loo abuuray
yaa lagu abuuray maaragtay dadkii maaragtay Soomaalida waxa weeyaan hadduu dhaqaaq yar dhaco waxa weeyaan waa genocide waxa la samaynayaa collective punishment wax la yidhaaho oo dadkooda lagu baabi'inayo maanta waxay heleen fursad iyay maaragtay wayaanuhu heleen weligii yaalihii kamuu fikirin maaragtay oo wayaanuhu oromada iyo amaad sidaa u kacayso weligii kamuu fikirin biggest nation in Ethiopia waa ummadii ugu badnayd Ethiopia marka ma jabin karayo siduu ku jabin karayaa marka wax weeyaan maaragtay mass revolution ka oromada maanta ka waxa weeyaan inuu abuuro conflict kale ka abuuro meelo kale laga soo galo meelo kale dagaalo maaragtay oromada lagaga wado si attentionkii ummadda oromadu u lahaayeen ay maaragtay revolutionka u lahayn attentionkooda lagu jeediyo ethnical conflict waxa la yidhaha in lagu jeediyaa la doonayaa waxaa la doonayaa in la abuuro national chauvinism oromia wax la yidhaha bay doonayaan inay ku abuuraan ay yidhaaheen look waa ka national chauvinism oromia iska inay yidhaaheen in markaa taal dadkeena aan ka dhaadhicno Soomaalida in laga dhaadhiciyo waxa weeyaan waxa socda is a mass movement is a revolution waxa meesha socda in a revolution ka laga qayb galo in revolution ka la taageero taan anu dadkayga aan ka codsanayo dadka Soomaalida aan ka codsanayo waa taa weeyaan in wayaanahani wuxuu wada iyo cabdi iila waxay u wadaan in ay kol kastaba maaragtay ay dagaal gooniya qaadaan ina iyaku imika ay kacanad ay abuuraan movementkooda movement imika ahaan lamida kaayo kale way abuuri karayaan abuuraan strategically ummadda Soomaalida meel fiican bay joogtaa meel fiicanna waa fadhida economically maaragtay wayaanaha total baba baa laga dhigay he won't exist ma sii joogi doono maaragtay hadday Soomaalidu kacdo wayaanuhu ma joogi doono maaragtay within 5 months ma joogi doono ina horta aan fahamno maxaa jira meesha waxaa jira wax ri'aala jira wax runaa jirta runtaasi maxay tahay waa Oromo revolution movement reality waa reality waa taa weeyaan wayaane iska celin karayaa mass movement ka Oromada waa no ay haddaba siduu samayn inuu maaragtay movementka uu baabi'iyo waa systemkii Machiavelli iyuu meeshan imika isticmaalaya are we stupid annaku stupid ma nahay mataa ma fahmi kari weyna waa maaragtay intaa yara fahmi kari weyna maahayna Soomaalidu oo fahmi kari weyna maahayna Oromadu oo fahmi kari weyna labadii dhinacba wuxuu wataa maaragtay kliigiisii uu wataa abdiila iyo kliigiisii iyo maaragtay basaasiintiisii dhinacan kalena maaragtay wuxuu wataa maaragtay OPDU oo national chauvinism bambaana abuuraysa xaggan kalena waxay abuurayaan national chauvinism bambaana oo Soomaali ah labadaba in laga dhaadhiciyo weeyaan horta imika ahaan inuu national chauvinism inuu meesha ka dhaxbaxo wax maaragtay national chauvinism patriotism is a correct inuu maaragtay ummaddu maaragtay Oromadu ay xorowdo dadka Soomaaliduna xornimadoodu maanta waxay ku jiraataa inay xoroobaan inay Oromada ay gacanta iswada qabsadaan iyakuna xaggooga ay ka kacaan ay xaggooga ka bilaabaan maanta hadday xaggooga Soomaalidu ay ka bilowdo maaragtay revolutionkaas wayaanuhu will be easily will tagi ka socon meesha marka maxay samaynayaan Soomaalidii kolkii hore passive-ka ahayd dawar passive kumay jirin movementka waxba kumay jirin yaa imika loo abuurayaa activity
national chauvinism oo maaragtay negative ah oo xun oo ku jeedinaya ummadda oromadii kale meelaha kala deganaana waxaa laga dhaadhicinayaa oo PDUB iyo maaragtay askartii ay wadatay national chauvinism kale oo maaragtay cadownimo ay u abuurayso Soomaalida oo Greater Somalia baa meesha jirta ay leeyihiin. It's wrong. Greater Somalia never exists. It doesn't exist. waxa weeyaan meeshan the two people who maaragtay iyo maanta isla nool waa Oromo waa Soomaali region kana waan ku nool lahay meeshana waan ku wada nool lahay meeshana waan ku wada jirnaa sideen u wada noolaan lahayn sideen maaragtay u heli lahayn xornimadeeni how can we get our freedom waa tay meesha taala weeyaan annagoo maaragtay mid wada soconna in mentalitega maaragtay national chauvinism ka madaxna loo gelinaya inaan maaragtay ka weynaano weeyaan wala dhalinyarada maaragtay Oromada intellectualkooga wala kuwa Soomaalida intellectualka inay taa ogaadaan weeyaan ina ummadooda laga dhaadhiciyo weeyaan haddaan maanta ahaan dadka Soomaalidu waxaan anigu sheegayaa in u tilmaamaya dadka Soomaalida aan maanta ahaan maaragtay aan la hadlay waxa weeyaan wayaanu waqtigiisii wuu qaatay Oromo wuxuu doonayaa dabarka inuu kaga jabiyo magaciinana magaca Soomaalidana dabarka inuu kaga jabiyo doonaya taana inaan diidno weeyaan inaan annaku isgarab taagno weeyaan maaragtay halganka ummadda Oromiya aan xageynana annaku aan ka kacno waxa yareen soo sokay maaragtay dadkeena madaxa la isku galgalinayo waa fitnad foolxun weeyaan waa jaahilnimo weeyaan inaan taa ka weynaano maskax aan ka yeelano maaragtay wayaanaha weeyaan nagama maskax badno nagama cilmi badno marka waxa weeyaan annakuba maaragtay inaan waxaayo kale aan fahanno weeyaan ay Soomaalidu ay taa fahanto weeyaan ay Oromadu taa fahanto weeyaan waxa weeyaan waxyaalaha caynkan in la joojiyo weeyaan wax soconayana maahin inaan socodsiinana maahin in maaragtay ninkan psychologically maskaxda ka bugtayno neurotica maaragtay ina iilaye iyo wuxuu watana kolkasta inaan la dagaalano weeyaan inaan diidno oo la dagaalano weeyaan dadkiisii buu baabiye ummadda Soomaalida uu baabiyay ummadda Soomaalida caqabo weyn buu ku yahay dhibaato weyn buu ku hayaa inaan ninka la dagaalano weeyaan waxa weeyaan ninkana waxa weeyaan waa fabrication maaragtay of wayaana weeyaan iyada maaragtay fabriika samaysay maaragtay he's a fabricated killer weeyaan inaan isaga markaa iska celino weeyaan isaga iyo wuxuu wataba inaan iska celino weeyaan inaan ummadda Oromada isgarab taagno oo dagaalkooda maaragtay mid ka noqono weeyaan waxaan u sheegayaa maanta haddaan nin lagu dilo Soomaaliya dhulka Oromiya amba nin Oromiya lagu dilo maaragtay dhulka Soomaalida in ay labada shicib ka Oromiya lagu dilo inay shicibku ay u kacaan ay u dagaalamaan oo qofkii dila ay doonaan iyo wuxuu ku dilay maxaana loo dilay waayo qofka dila waa inuu doono in magaca Soomaalida lagu isticmaalo maaragtay nin innocent ama qof innocent in magaca Soomaalida lagu dilo waa wax maaragtay wax weeyaan waa crime weeyaan in ay dadka marka Soomaalidu ay ka kacaan waxay nii sheegayaan dadka Soomaalidu inay ka kacaan nin Oromo ah haddaan lagu dilo dalka Soomaalida inaa ka kacdeen inaa doontiin qofkii dila iyo wixii lagu dilay dadkii inaa doontiin at the same time waxaan ka doonayaa maaragtay dadka Oromada Soomaali lagu dilo maaragtay dhulka Oromada ina ummadda Oromadu ay diido inay ku hor joogsato maleeshiyada maaragtay dhulka wareegaya ay wayaanuhu ay wadaan baa waxa fidnada wadaya marka ka hortaga maaragtay fidnada caynkaas ay wayaanuhu wadaan in ay ka hortagaan labadooda qolaba inay ka hortagaan ila ay diidaan weeyaan ila waxyaalaha caynka maaragtay ay isku wada sheegaan ay ummaddu isku sheegto ay tiraaho waxaan maaragtay waa waxaan ka balxal isku keengelinayo waxaan ku maaragtay inaan ku dagaalamo doonayna inaan aan ku dhacno hogga ay doonayso wayaanuhu uu doonaya imaahin waa inaan iska jiro waa inaan diidno waa taa weeya maaragtay waxaan noo wadataa gabigeena baa noo wadataa maahin waa maaragtay Oromo maaragtay media net maahin Soomaalida media
كل ماشي كمان كستون information كم بحكرنا إن information هذا عن ذاتك عن أشياءنا ومارك كان كواري نويا وتاويا نتبع النيشاجي هذي وحير أي دعان أضيّده إن أضيّده أورمضة صومالي ويسكو إيمانيان ومارك تبيكودة تشليه any problem هذي وحير دعاء incident هدول دعاء وأنا جودة تشيجن incident كوحويا و traditional by not هاي traditional law وان لاين هلا traditional law جا وليه أورمضة وحويا واتو إلى ما أنت الوصول دغلا ومارك تبي جدا سيستم كأمريكا أي أورمضو لا ده حير كصوماليدو أي لا ده وتان كل كستيبل ما بتجليده إن يماركة كل كستيبل ماركة وهذا النوع الصعب وهذا الواحد كستيبل اللي حالينه وإن بتجليه واحد كستيبل اللي حالينه سيدا درادد إيه confrontation أورما يصومالي كان أحد إنه أجري وايو أضيان ماشي جري ما أنت عبدي إلى أضيادي ولا دجال لما مارك ويجران أضيادي وبادي ما أنت محا هذا حاجة وحاجة الصومالي ده وحاجة هذا حاجة الصومالي ده مركب محا هذا وحا هذا وإنتلكتوال كي وأكاديميستيان الذي مارك جامعة ده كجرا وحاجة أضيا وحاجة مارك تذكروا وحيقانا جرا وحجر دتي مارك كوميرس مارك مشتركة وينه كلا جرا ما هنا أورجنايزيشن ناجرا يبدأ يبدأ هذا وولي بلغت دوني أورجنايزيشن هذا وين إن يكون ماركتي أي إنيشياتيف كقاتان سي أي مارك شركة ولا هذا الكلام إنسان ومارك ولا هذا الكلام مركا وحويان halka aynka kolka aynka uu dhacay kolka stay fal aynka uu dhacay traditionally waa lagu xalin jiray imikana inay tii naga baabado maahan waa dhaqankeena waa culturekeena waa inaan horta taa maaragtay aan nooleysiino si ay dadkeenu maaragtay dad dambe waxyaalaha aynkaas oo kale maaragtay ay faraha isku leeyihiin taa imika loo baahan yahay waxa weeyaan waa tii kale ee all the organization Somali organization inay dadkooga mobilize ay ku sameeyaan inay dadkooga wax baran inay dadkooga u dharan qadciyaan inay dadkooga ay yiraahin maanta movementka Oromia ee socda waa inaan ka qayb galno waa inaan mid ka noqono taa iyo maantaan annaka xaggayga looga baahan maanta dariiqada Oromia ay qaadatay maas movementka maanta Oromia qaadatay it's not only maahin freedom of Oromia freedom of all وحوين وحرية نماهن أوروميا يقولوا وحرية أمة إثيوبيا يوئدوا يمان تميل من الناس الصعب مركا تام هذا ما conscious هكذا نقول مش هذا conscious أبو contribution كمان أوروميا أي سينيان مارك قومية ده كانوا يبغى خاصة شو مارك contribution كأي سينيان revolution إليه مارك تواكاس مارك نكبرت الناس موفمنت وحويا وعشر عن كبر أنا ما أنت أوروبيا إذا كبر أنا ويا المعركة الناس موفمنت أوروبيا ما أنت وأن ما أنت عندك كنا ما أنتهان أن كل دي الناس موفمنت أوروبيا النهر كأذا إن أنا نكون ما أنت طريقة كابسن وكان لوبا هي معركة أوروبيا intellectual كوجا ويدودا يدك كلا إن يكو قدودا إفهمان دك الصومالي إن عدو وجاهن دك الصومالي ولا له ذيهن dadka Soomaalida ay la qaybsadaan revolution kan maanta socda ay la qaybsadaan weeyaan isticmaar meel kasta uu jiro comprador la shaqeeyo lama waayo kul la shaqeeyo daba dhilifa lama waayo meel kasta waa sida adduunka way wada jirtaa laakiin kuwa waxaan u sheegayaa the time is over waqtigii wuu dhamaaday ويانا مسي جري دونو ويانا ماشي سوي كبحدي waxa weeyaan maanta xageen ka galaa waxa weeyaan maanta halganka iyo revolution ka maanta han socda Ethiopia ka socda xageen ka soo gali karna waxa weeyaan taariikhduna waa in sheegi doonta taariikhdu waa tilmaami doonta taariikhduna qofkii maanta ummadda wax ka geysta kamuu baxsan doono mashuu tagi doona waxa weeyaan ninka maanta ummaddiisa baabi'inayo
بريتولا ماركتا كنت ماركتا كو أفوق ماركتا بريتولا أقوم مين مالكو قرين دون تل مجد مركا وحويان ما أنت أمد هذا مد كل نقطة يا ماركتا مهمة أمد الصومالي ده ما أنت هان waxa aamusisay waxa weeyaan Soomaalidu oppression fall xun bay ku jirtaa they are very very oppressed ilaa maanta passive bay ka ahayn maanta revolution ka maaragtay Oromia maanta ka socda now iminka iyay fahmayaan iminka iyay maaragtay ay kacayaan waxa weeyaan iminka han dibadda waan iska weydiinaa annagu waan is wada weydiinaa gudaha waan iska weydiinaa waxa la og yahay ay dadku ay wada leeyihiin waxa weeyaan wayaanuhu wuxuu doonayaa inuu Amerika ka dhigto inuu arnaka Oromada lagu daro dadka Soomaalidu way og yihiin dadka Oromadu inay cadawgooda ahay laakiin mid baan kaaga ballan qaaday sooner or later dadka Soomaalidu maaragtay way ka kici doonaan new policy iyo maaragtay abdi iilayna ummada kuma tuman doonaan amba Oromada aan noqdaan amba Soomaalida aan noqdaan sooner or later iminka ummada Soomaalidu waa inay taa ka kacdo waa inayna ka kacdo waa inay maaragtay new policy maaragtay wayaanaha maaragtay iska celiso ayna ogaato inay dadka Oromadu maaragtay cadawga yahay ay ogaato inay maaragtay dadka Oromadu dhibaatada ay ku hayaan ay ogaato dadka dhibaatada maanta ku haya iyaga ay cadaabaya ay maaragtay dhibaatada ku haya inay new policy iyo maaragtay inay ilaayo iyo wayaanuhu ay yihiin taa ina maaragtay Soomaalidu maanta way fahamseen inayna fahmaan weeyaan inayna Oromada ahayn weeyaan in maanta taa laga kaco maaragtay maanta maaragtay wixii maanta ka dambeeyana inay Soomaalidu maaragtay ay taa ay diidaan weeyaan ayna maaragtay dagaal maaragtay ay ku qaadaan weeyaan ayna ka kacaan weeyaan ayna maaragtay ay xuquuqdooda raadsanaan sida maaragtay dadka Oromada u raadsanaan maanta waa anigoo maaragtay Maxamed Axmed Xasan oo Zakariya Axmed Xasan loo yaqaan waxaan dadkeena ka codsanayaa dadkeena Soomaaliyeed ka codsanayaa waxa weeyaan ugu horeysa in maaragtay la sheego annaka maanta Oromana may guumaysan nagu maahan guumaysiga dadka nagu hayo waa naqaan guumaysan maanta dadkana cadaadinaya waa naqaan dadkana gumaadi jiray waa naqaan dadka xoolaheena bixi jira waa naqaan dadka hablaheena kursanaya waa naqaan dadka ilaa maanta noo diidan inaan nolol aan gaadnana waa naqaan maanta Oromia way diiday waan kacnay ilaahan waan diidnay maanta xor baan doonaynaa ilaahay maanta annaka oo kolkii hore bariyii hore oo dhaqdhaqaaq wadi jiray waana la gumaadi jiray من منك حيل سلاسة من جشتو إلى ما تتهني وانديدي جدنا ما ركتي دبعتنا نلقاها لكن ما أنت محانا آموسية ما أنت محانا آموسية محان أك إلانا هاي محان ما أنت تهاي أورما ما أنت أك على نك أنا لا أمارة كانوا ويني محان ما ركت حر المدينة ما ركت كانوا قاعد ويني maxaa qoomiyadaha kale ee maanta kacaya sida maaragtay Amaara iyo maaragtay dadka kale maaragtay lagu dayaweynay maanta waxa weeyaan haddaan maanta aan kici weyno maanta haddaanan maaragtay xuquuqdeena aan dawlo weyno waqtigu buu socdaa wayaana wuu socday maanta meelaha markaad cushanaysid ma jirto sidii hore baan kusoo noqon doonaa maanta waxa weeyaan in maanta ahaan ay dhaqdhaqaaqa ay Oromadu ay samaysay inaan ku dayano on dhaqdhaqaaqa aan samayno inaan dhaqdhaqaaqa maaragtay aan mid ka noqono maanta haddaan annakii Oromo aan mid noqono wayaana ma jiri doonaan dhaqaalaha maanta wayaanaha u haya waa Oromia dhaqaalaha maanta oo maaragtay wayaanaha iyo maaragtay u haya waxa weeyaan waddanka Soomaaliya استراتيجية ما أنت وكفر دقيقة ما أعرف الدقاليس وكفر دقيقة وأنك وياه تبي هاول كعلى إن ما أعرف وين أنت تعلم ماشي وجد وين أنت تعلم وإلى ما أعرف تاسي إذا أسكت إنه وإلى ذاتك أمدا عن مثل النقل وإلى الملك استبد دقائق عن كم الجنة يكون وأقول لك أنت سوق ما كم بالجدية أنت سوق ما كم بالجحد ولا ما أنت لو جمارية لكن ما أنت ما أعرف تجعل ما إلى ما أنت أوصل جدا حرمضونا إلى الحرمضونا ما رتكسوه الجسن إلى هي دكيس واحد دون الحرمضة إلى الجريمة
xornimada Oromiya waa xornimadeena weeyaan annaka maaragtay haddii wax ku xor noqdaan annaguna xornimo marka waxa weeyaan waa inaan annaku aan kacno xornimadeena aan doonno ina iileeya iyo wuxuu wata iyo kulli iyo saqajaankaasina maaragtay inaan la dagaalano inaan diidno weeyaan inaanan u dhamayno weeyaan wayaanaha iyo maaragtay xoogiisa annakaana u dhamayn karayna haddaan annaku Soomaalina haddaan maanta tahan annaku aan kacno isku dignahay annaka Soomaaliya ayaa maanta u dhamaanay wassalaamu calaykum